xogayihii warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa hadda shaaca ka qaaday inuu iska casilay xilkii uu ka hayay xisbigaasi isagoo sidoo kale sheegay inuu guud ahaanba ka baxay xisbiga wadani. Xuuto ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn siyaasadda iyo qaabka ay xisbiga wadani wax u wadaan, waxaana uu yiri isagoo arrimahani ka hadlaya. Waxaan maanta doonayaa inaan halkan ka cadeeyo ama aan ka shaaciyo guud ahaan in aan ka baxo ama aan iskaga tago xisbigii mucaaradka ah ee wadani ee aan muddada kooban ku soo jiray. Sida dadweynuhu la socdaan, waxaan ahaa dadkii holaday in ay siyaasadda galaan waqtiga ololaha doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka isku sidkana. Intii ka dambeysana waxaan ku jiray xisbiga wadani oo aan ka ahaa xogayaha warfaafinta. Waxa maanta qadarku noqday ama go'aansaday markii aan talooyin fara badan sameeyay, markii aan arkay in mustaqbalkayga siyaasadeed ama mustaqbalkaygu xisbiga wadani iyo qaabka uu shaqeynaya aan ku sii jiri karin, in aan go'aansaday in aan maanta si rasmi ah uga baxo. Waxaan wargelintan ama maanta baaqan halkan uga jeedinaa wax weeye dhammaan ciddii dadweynaha ama taageerayaasha ama siyaasiyiinta ay aqoonsanayaan xisbiga wadani ku jiro in aan maanta ka baxo. Aniga oo runtii tixgelinaya, anigoo eegaya muddadii koobnayd ee aan ku jiray xisbigaasi iyo waxyaabihii aan ka faa'iiday ama aan ka bartay, oo runtii waxyaabo kalifay inaanan maanta ku sii jiri karin xisbigaasi, maadaama oo runtii loo xamaan urursanayo ama loo hub qaadanayo waqtigii doorashada madaxtooyada, isla markaana xisbigu qabsanay shirweynihiisii, in aanan shirweynaha xisbigana ka qayb gelin guud ahaantiiba, gaar ahaan inaan si toos ah xisbigaasi uga baxay xil iyo xubin wixii aan ka ahaaba. Mustaqbalkayga siyaasigana runtii ama qaabka nololeed aan anigu go'aansadan runtii aan gadaal ka soo sheegi doono ama aan ku foofi doono imika wixii ka dambaysa. Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto oo aan wax ka weydiiyay sababta keentay go'aankiisan, maadaama oo shirki golaha dhexe ee xisbiga wadani uu birita ka furmayo magaalada Hargeysa, ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ay tahay in aanu ka qayb qaadanin shirkaasi birita dhacaya. Waxaana uu yiri wadani intii aan ku jiray wax badan baan runtii ka bartay. Marka kulley dhaliilaha jira ee maanta Soomaaliland oo dhanka jira ee ah in siyaasaddu runtii duruufo adag ay gelayso ama dad kooban ay u xidhan yihiin manaasibtii ama mustaqbalkii siyaasadeed ee maanta dalku baa kulley qayb ka ah. oo waxyaabo badan baa muddadii aan joogo runtii ila soo darsay, kuwaas baa kalifa markaa runtii maanta maadaama oo berito la shirweynihii la qabanayo in aan ka qayb gelin shirweynaha iyo inaan xubinnimadii xisbigaba saasi adduunyaha kaga baxo. sidoo kale Maxamuud Cabdi Jaamac ayaa wax ka weydiinay bal inay jiraan culaysyo kaga imanaya dhinacyo kale oo siyaasadeed, waxaana uu ku jawaabay wallahi koow waxa ka ah waxyaabahan ku arkay xisbiga wadani. طبعا كوبي كتاي wax badan baan sidaan ku sheegay oo aan gadaal ka sheegi doono ama runtii aan soo bandhigi doono duruufaha xisbiga gudihiisa igaga yimid ama xisbiga gudihiisa ka jira. Sidoo kale runtii ilaa iyo markii aan ka baaqsaday ama aanan ka qayb gelin tartankii golaha wakiilada, fikirka ah in aan mustaqbalkayga siyaasadeed dhiso xisbiga wadani runtii aad buu u wanaagsanaa. laakiin waxaad moodaa imika intii ka dambeysay in rajadii aan kuga simid noqon lahaa xisbigaas runtii ay soo ururayso soo koomayso, taasaana maanta runtii keentay inaan soo afjaro. Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii u tartamay golaha wakiilada, balse doorashada ku hadhay 31 bishii May ee sanadkan aynu ku jirnay 2021, isagoo markaasi kadibna noqday xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Sidoo kale Xuuto ayaa waxa uu hore u soo noqday gudoomiyihii ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja, balse ilaa hadda waxa aan la garanaynin halka xigta ee uu Xuuto uga diga rogan doono xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Sagal Cabdiraxmaan Axmed